بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. imankana maanta waxaanu ka hadli doonaa noocyada waraabka iyo qaabka wax loo waraabiyo. noocyada waraabka ee ugu caansan ama ugu horeeyey ee dunida soo gaaray waxaa ka mid ah falaadka iyo varowga. falaadka iyo varow irrigationka waxay kasoo bilowmeen xilligii oo ay bilaabatay beerashada ama agrarian revolutionka ama kacdoonkii beeraha ama green revolutionka wixii loo qoo jiray ama kacdoonkii cagaarnaa. marka sidaanu ogsoonahay marka xilligaas oo ku beegneed macnaha xilligii oo sheegay nebi nuux ama abul bashar thani oo kasoo degay webigan labadan webi dhexdooda oo dajle iyo furaad markii la halaagay qoomkii uu u digayey ee xilligaa noolaa. marka agrarian revolutionka marka xilligiisaas ayuu varow irrigationka ama vlad irrigationka iyo varow irrigationka labadaas oo aada isugu dhow. marka varowgu waa marka oo dhulku sidaas u jeexan yahay oo biyuhu halkaas ay fariisanayaan geedkuna meeshan ku yaallo. marka valaadkuna waxa waaye geedka salkiisa biyuhu imaanayaan, dhulku waa dhul siman, marka biyaha kanaalka looga soo leexinaa automatically marka way ku daadayaan. marka geed walba marka meeshiisii ugu tagayaan salkiisii fariisanayaanoo inkastoo markii la ogaada marka kaas inay cuduradiisu badan yihiin maadaama falaadku horeeyey ayaa waxaa la sameeyey varowgan oo geedaha qaar oo biyuhu aadka ugu daran yihiin macnaha geeduhu salkiisa inay fariistaan oo ay ka qormayaan salka ka qormayaan ay macnaha laga hortagayay ayaa waxaa la sameeyey varowga. kabacdi waxaa la sameeyey marka waxyaabahan la yidhaahdo markii la bartay dhulka in la qurxiyo ayaa waxaa la sameeyey baalkan la yidhahdo sprinkler irrigationka. sprinkler irrigationka waa waraabka lagu beero cawska ama cawsaska ama meelaha loo dalxiiso lagu beero cawsaska lagu beero ama meelaha kubadda lagu cayaaro cawsaska lagu beero waraabka lagu waraabiyo ayaa waxaa la yidhahdaa sprinkler irrigation. waxaa kaloo jira oo hadda caan ah drip irrigationka iyo central pivotka oo noocaan ah. central pivotku waa noocan oo inta badan marka wuu wareegtaa wuxuu sameeyaa biyuhu waxay ka daadanayaan bahaladaas dhexda ku yaala ayay ka daadanayaan marka oo wareeganaya tubadaasay soo raacayaan madaxana firdhinaya. marka waxaa la yidhahdaa central pivot baa la dhahaa. central pivotka wuxuu asna ku fiican yahay dalagyadana waa lagu beertaa inta badan, laakiin asna cawska lagu beertaa. markii la sameeyo xoolaha adduunka marka uu casriga noqday oo xoolihii la xareeyey oo xoolaha la xareeyey ayaa waxaa la sameeyey si cawskii ama calafkii ay cuni lahaayeen loogu beero ayaa waxaa la sameeyey central pivotka. central pivotku wuxuu macnaha markasta waraabi karaa dhul aad baa xaddiisu u weynta. marka wuxuu samaynayaa dhul aada u baaxadiisu ku wareeganayaa halkii marba wuxuu labadii xabo oo isgeestaala waxay ku soo wareegan karaan dhul adigu ku dhow 50 hectar ay kusoo wareegan karaan because labadan taageerba waxay isu jiraan 50 mitir taageerkan iyo hadda xaruntaas oo biyaha oo fadhigiisa ah oo matoorku yaallo waxay isu jiraan 50 mitir iyo taayirkan oo koobaad. taayirkan koobaad iyo taayirka labaadna waxay isu jiraan 50 kale. marka hal mar markuu saan usoo wareegsadii booskiisa kusoo laabto wuxuu 25 hektar uu kusoo wareegana halkii mar. marka saas buu ku fiican yahay oo loogu talagalay. marka kabacdi markii cudurradu bateen oo sheeg wax badan qudaarta cudurradeeda iyo waxa soo bateen waxaa la sameeyey waxa la yiraahdo drip irrigation. drip irrigationka waa dripkan loo isticmaalo greenhouse-yada casriga banaankana waa loo isticmaali karaa. waa tubadan marka waxaa ka leexanayso tubadaas yarta oo siinaysa biyaha geedkan marka geedkan salkiisa ayaa waxay ka dulashaa ama ka difqaysa biyihii. marka meeshaas biyaha yarkaa ku difqaya ayuu geedkani cabaya oo ku noolya. marka waxaa la yidhahdaa drip irrigation. drip irrigationkan waa irrigationka ugu biyo dhaqaaleyska badan ama markaa rabtid inaad biyo yar
aad dhir ku beerato aad isticmaali kartaa. Marka waa aad buu biyo dhaqaalis badan yahay. Inta badan waxaa loo isticmaalaa filtarada si aysan ilahaas yaryarka ahi u xirminin. Waxaa lagu xiraa tubadan weynta, waxay kasoo tagtaa filtaray kasoo tagtaa. Marka haantaas xaggaa saaran ayaa waxay saaran tahay meel oo saray saaran tahay. tubadaasay kasoo deganayso, tubadaas filterkaasay ku deganee, filterka markay ku degtay kabacdi tubadana kasoo baxayso. Marka wax walba oo meeshaas ka imaanaya waa filter garaysiin. Isha yartaahoo marka tubadan yari ay leedahay kaa xirmi mayso. marka sidaa daraaddeed waxa waaye waa noocyada ugu caansan ee waraabka la isticmaalo. waxaa ugu horreeyey falaadka, waxaa ku xigay farowga, waxaa ku xigay sprinklinka, waxaa ku xigay central pivotka, waxaa ku xigay dripkan. marka shantaas nooc oo waraaba ayaa hadda la isticmaalaa inta aanu ognahay. waa jiri karaan waraabyo kale oo la isticmaali karo oo annaga waddankanaga aan soo gaarin, waa jiri kartaa. laakiin inta aanu aragnay noocyada waraab ah waxaa weeye waa flatka, varowga, central pivotka, dripka iyo sprinklinka. inta badan waxaa lagu beeraa cawsaska meelaha lagu dalxiiso ku yaala ayaa lagu waraabiyaa. marka intaasaan kusoo gabagabeynaynaa intii ilaahay naga garansiiyey. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.